golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku meel mariyeen hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo siyaasadda isbeddelka cimilada. shirka golaha wasiirada uu shir gudoomiye hayaa ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sidoo kale lagu ansixiyay istiraatiijiyadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka. axdiga jaamacadda Carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa, heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, iyo heshiiska ilaalinta laba jeer canshuuridda iyo ka hortagga la baxsiga canshuuraha saaran dakhliga u dhaxeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Qatar. sida uu sheegay hayaha wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud. waxaa maanta lagu ansixiyay golaha wasiirada siyaasadda isbeddelka cimilada. waxaa kaloo la ansixiyay siyaasadda hindis sharciyeedka hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo istiraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga. waxaa kaloo maanta la ansixiyay axdiga jaamacadda Carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa, hindis sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta ee aqoonsiga dadweynaha oo wasaaradda arrimaha gudaha keentay, heshiiska Soomaaliya iyo Qatar ee dhinaca canshuuraha ah, iyo heshiiska Soomaaliya iyo Turki ee xagga waxbarashada ah. kuwaas waxay ahaayeen hindis sharciyada iyo siyaasadaha maanta ee golaha wasiirada si aqlabiyad leh uu ku ansixiyay. kadib waxaan dhageysanay warbixin dheer oo wasiirka waxbarashada uu noo soo jeediyay Mudane Goodax oo looga hadlayay siyaabaha loo dhiirigelin karo loona tayeyn karo waxbarashada Soomaaliya oo aan ognahay 10 sano ugu dambeysay ay soo qaadatay marxalado kala duwan, maantana meel fiican marayso laakiin wali u baahan in la dardargeliyo. waxaan ognahay in manhajka fasalada koowaad ilaa 12aad ay Soomaali ku qoran yihiin Soomaaliya ah, tayeynta macallimiinta ardayda, kormeeridda iyo korjoogteynta wasaaradda waxbarashada iyo goobaha waxbarasho in la tayeeyo. marka wasiirku wuxuu noogu waramay si dheer meesha ay maanta u marayso iyo daadihinta ay wasaaradda iyo dadaalka ay wasaaradda ku wado si xoojinta waxbarashada wadanka. kadib waxaan dhageysanay warbixin kooban ay wasaaradda gaadiidka dekedaha ay noo soo jeedisay wasiir Maryam oo ku saabsan heshiiska Soomaaliya dekeda Soomaaliya iyo Albayrak ay galeen oo muddo 3 sano iyo bar intay dowladdan jirtay uu wada hadaladeeda ay socdeen oo haddana meel fiican soo gaaray ay ugu weyn yihiin saamin qaybsiga faa'iidada ka soo baxda dekeda ay dowladda ay kala qaadanayso. qodobo 7 ah ayay ahaayeen oo ay heshiiska wasaaradda ay kula heshiinaysay Albarakaat Albayrak. waxaana muddo dhow khamiis soo socota haduu Ilaahay la keeni doonaa faahfaahinta heshiiskaasi oo dhameystiran si ay golaha wasiirada go'aan ugu gaaraan. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.